لكن هل مدينة الصومالية وقتها مهمة وحويان الدوم كهذا ما أنت تشوي يكوهرا والله بقول السنة هرتاد وحلا يسكو هيستي أو الوتر تمية وخيرات هنتي ويان global contest for the last 300 years is about resources nothing else marka waxa weeyaan qofka intuusan ku gumaysiga waxa kamid in markuu hore abject poverty liidagu hoos mariyo oo masaakiin noqotaan marka wax allaale wixii laga rabo laga dhamaysto nimba wuxuu qoray book Ethiopian alright professor ewa qoray 2002-2003 medani naxasuustan kalamowi al-ittihad ku qoran tahay nin alla ninkii Soomaali ah oo magac lahaa oo dhanba oo Soomaaliya Djibouti lama bariki carti waxa meesha Djibouti lagu sameeyay kullu wuxuu yiraahday waxa weeyaan asal raac weeyaan waa basically people with connections to terrorism waxaan garanayaa aan anigu garanayay oo saaxiibaan ahayn oo shanta salaadood aan tukan jirin khamrigooda iska cabi jiray laakiin waxa ka dambiga ay galeen kaliya ay had they are wealthy or they looked wealthy maybe that's the right terminology إلا سومالدو أنك هنتيدا أنذا وينك موقتا نك هذا المليون شيلن هو قبو هو هيستو أو كينيا مركب هو بطل دوري تمام كنا دولار أي تاي حاس كيسن الذهب بقبتها 1000 عام بكون دولي هاي جاري ولا يكسرنا بس كوتا مركب نك كستا وحاول كنا العصان سومالدو ولا العكس عط وهذا قرت سوما نك بروفيسور كا وهو الاتحاد بالبوجة هو الرد الاتحاد كي إصلاح شيخ هاتف هو مقعيس وقرنيا كل جود مع العمر فاروق اللي انت له ونحرستو دنبو حكدقي أصل راع تيروريست أو انتولرانت تذكر دنبو كدقي مركا وحاد فهمتان وحلو دن ليه هي وأذيك إن لقوا بابي خيرات كادنا لا وريقو سيد الله ربنا الله هيرو وهكذا العصر الصومالي هذا أنا عندي شيء كان لا اختيار بن قادنا إياه وضل أنا قاعد أسمع الجوم لما كان بالي هذا لأنه أردن بقول كيف تضبط وهذا وحجرت كه مركب مستعمر كنت إيماني وحياة المسلمين إلا هذا مركز أركتان نينكي فوما فايس بريزيدنت في كينيا مودي أوري مركب حفلة ماري خميس بحرينشري يا حسوستان وخميس حرينشري نينكا سيتو أوجي ومسلمها سكنا فأبي nimanka tabeta iyo daga iyo tayta iyo griyamadan iyo kulli diinta islaamka ay ku jireen Eastern Congo oo dhan muslimiin bay ahayn maxaa lagu gaaleeyay karaani baa la qori ninka markuu aqoon yar leeyahay waxa la oran jiray ma geli kartid iskuulka ilaa ma lagu baptize gareeyo oo kristaan noqoto maxaa iskuulaadka waxa la han jiray oo lahayno gacanta ku hayeen kanaisti nanaga provincial commission noo ahan jiray la oran jiray موريس اسم خانو بقول وموريس سالم مخانو إلا هذا فهم الكيس هافو بدأ مع مسلمس مركي قالان سكول كاسيتو وقصب إنه قفك قالوا النقطة محو كل نقضي إنه كاسيتو أنتو أقوان هلو شقينا يو مشاركين عدة كينا يو أي ريركي وحلنا أيين كان هنغن نقضي كريستان وهنتيها نوكيرو نايم مغشى هذا كي تفيت هذا أوبتا بقالا من تفيت هذا ده وقبل إنه يتون ناومي شعبان magaceeda ummi baa la oran jiray markay iskuulka gashay baa laga bedelay oo kristaan laga dhigay Naomi Shacbaan bay ku qoratay gadaal bay haddana dib ugu soo noqotay diinta iyadoo qof weyn ah mar dhow hadda 10 sano meelaha laga joogo dharka gaab bay xiranaysi hadda ay diinta si fiican maarta ugu soo noqotay muhiimadda aan soo wad markii wadanka uu burburay oo meesha ugu dambaysa la gaaray waxaa lagu talagalay inaad xariyaha qaxootigana tagtaan dibadahana la idin wada dhoofiyo kanaiska iska buuxisaan kulligan aad kristaan noqotaan caruurtiina ay kristaan noqdaan dhulkana saa loola wareegaa lagu talagalay way socon laadahay waxaa kale oo isla midda iyada aan idin sheegay dhageysto horta ha fogeysanina ummad 10 milyan in dhulkoodana la bedeli karo demographic change ay dhici karto diintoodana la bedeli karo ilaa 9 milyan iyo barba Andalus Iberian Peninsula joogeen markii ay dhici jirtay taftiishka ay dhici jirtay oo lala wareegay oo la gaaleeyay waa 9 milyan iyo bar Arab oo
udhasheen barkood asal u ahaayeen xijaaz iyo wax kastoo dhanbo dadkiina taariikhda garanaya ilaan Portugal oo dhan diinta maxay ahayd markaa laga haystay Spain iyo Portugal waxaa la isku dhahaa labadooda Iberian Peninsula waa la bedelay dadka ayaga ahaa ayaa intii loo qaaday North America ay u kaceen markii dambe oo discover gareeyeen Christopher Columbus iyo wixii la jiray oo dhan waxaan dad asalkooda islaam ahaa yaa haddana geeyay kristaannimada South America iyo meel kastoo dhan garanaysaan marka ninka Soomaaliya ku xisaabtamahayo inaadan lagu bedeli karin 15 sano hadda ka dambe hadii la joogo oo 3 milyan oo Ethiopian ay ku soo beeraan Kenyana annagana qaybtaanada aan iska qaado nin kasta maxaa ku halayaan ku weydiiyay oo 5 milyan oo laba dhiigle ay soo baxaan 5 milyan oo aabahood iyo hooyadood hadaba Abu Musa iyo Abu Abdullah iyo Abu Abdi wixii dhigi jiray oo dhan oo Burundiyaanka iyo Koongoliiska ay naga dhaleen oo ahaayeen ashabaabti gabdhihii loo dhisay aabahood hadda intee loo raadinaya maxay noqon doonaan markay 500 oo kun noqdaan wad garanaysaan waad garteen Soomaa marka horta waxaad ku tala gashaan khayraadka lagala dagaalamay ninkan waxa loola dagaalamay wax kale ma aha hanti uu yeeshay isbedel baa dhacay dadkii la rabay xariiqa qaxootiga inay galaan kanaaysta inay la kala wareegaan caruurtooda in la aruursado tiiba socon weydi marka qasab waxa weeyaan in la yiraahdo wax kasta lagu dayaa xawaalada joojiya inta ka fura Soomaalidana waxay iska noqdeen dad iska firfircoon oo inkastoo sida hore hadda ay dhaheen maanta waxaan idin sheegi Ingiriiska wuxuu la dagaalamay China in the 17th or 18th century the Opium War 18th century waxaa la dhahaa dagaalkii opiumka Soomaaliya waxa lagu dhahaa opiumka oo mukhadaraadka la bahalkan bangiga ma garanaysa xashiishka ha marka Chinaha waa laga xoog badnaa waxa la waa qasab inaad ku gaataan xashiish oo cabtaan oo lagu laayay warsama garanaysaan midaayada Ingiriiska intuu keenay xashiish buu u keenay Chinaha oo yiri waan ku laan hadii kale iibsada Opium War baa is a trade war basically khayraadkooda inuu qaato iyagana ay baabaan sida madowga Mareykanka iyo maxaa la nimankii native Indians native Indians lagu sameeyo oo dhanba intii meel loo hagaajiyay reservations khamrina lagu baabiyo خلاص iska baabaan iska tirtirmaan way dhici waxa laga dagaalamayaa aqoonta laga dagaalamayaa independence that aggressive independence maxay say ku heleen 10 milyan oo dad aan oo 15 markay u badan yihiin dhul intan leeg inay helaan oo bad intan leeg inay helaan oo wixii oo dhan adduunka baa isbedelay haddana waa in la isla qabsadaa waayo waxa ku daliil waxa la yiri magac xunsi marka kadib dil give a dog a bad name and then kill it markii la qabsanayo oo la laaynayo oo genocide-ka lagu sameeyay American Holocaust la yiraahdo dadkii loogu tagay xagga Mayans-ka iyo Aztecs-ka iyo Native Indians-ka lagu laynay waxyaabaha ay ku oran jireen Ingiriiska iyo dadkii meesha tagay oo cadaankii tagay waa bestials ma garanaysa macnaheeda bestial waxa weeyaan ragga u taga ee waxaan ka soo kale la mid yihiin sida xayawaanka oo kale u dhaqdaan bay dhihi jireen oo dadkooda lagaga helay justification-kii loo laan lahaa ilaahay baan nafaray kuwan oo kale inaan ka tirtirno si fuu ay ummad fiican uga soo baxday dhihi jireen iyagoo markaa diinta Kirishtaanka maxay ahayd hagraacayaan yaa aha bestial maanta qofka ku dagaalamay qasab ragga in la isku dhisay kala macaawadan ka goso iyaga ma maanta maxaa lagu dilahayaa gabdhahan hay isguursaan Allah hadlina raggan hay isguursaan Allah hadlina Soomaa taasa lagu haystaa hadda adduunka saddexaad oo dhan balaleey waa in qasabad saas sameeysan marka wax aan lagu dayayn ma jirto Soomaaliya mid baan idin sheegay dhageysta haddii markaan meesha soo socday baa qof baa ila hadlo wuxuu yiri waniyo xogaa annagana waan ka yar cabsanaynaa bal xabashida iyo Mareykanka waxa ka sheegin kowdi waxaan iri waxa iyaga aan kala cabsan weeyay kala cabsanayo Doosama ayagii waxaan kala cabsan weeyay la Mareykan wax ka qood weyn ma jireen idageysta waxaan bixiyay speech dheer baan bixiyay mar hadda laga joogo 12 sano oo iri disintegration of state and society wa Soomaaliya horta waxaan lagu sameeyay wax hadda anaga ugu gubnaa ma aha dad badan baa horta lagu sameeyay disintegration of state and society wa Soomaaliya lagu sameeyay hakala jabaan qoys qabiil caa'ilad fariiqa maxay ahayd madhab wax kasta waxa noqdaan
markaasaa balkanization lagu sameyn tuulaa lagu hagaajin oo la oranaya idinka is xukuma marka ugu dambeysana dissolution baa lagu sameynaa waa lagu laqaya gebigaada oo dhan waxaan u malaynayaa the script is going on exactly the way we saw it from the beginning. Iraq meel ka dhib badnaa ma jirin 600 oo kun oo ciidan oo bacthi oo Saddam Hussein uu haystay baa jirtay Mareykanka uu tagay uu burburiyay xoog buu ku qabsaday ciidankoodii buu u hagaajiyay u dhisay ciidankoodii yuu hagaajiyay asna uu ka soo baxay yar waa dhamaytiraya hadda Afghanistan meel ka dhib badan ma lahayn Asiatic interior ciidamo keena sidii ma la dhihin peacekeeping or permanent lagu sameeyay lama dhihin waxa loo hagaajiyay their own security machinery yaa ka hadlaya maanta Soomaaliya in loo hagaajiyo security machinery iyaga ay leedahay oo maaragtay wadankii oo sugayo oo wadankii hagaajinayo oo maaragtay maxay ahayd iyagii ay la wareegayaan they take charge of their own affairs maalinka ka dambaysa al-shabaab meesha uma joogto ummadda Soomaaliyeed wiilasha yararka ahna in maskaxda laga siray iyo inay kamid yihiin in lagu adeeganayo in ajnabi ku dhex jiraan inta way isku jirtaa waxay u joogaan interestiga cadawga Soomaaliyeed haddii la tirtira maanta ma tirtirayaan iyagaa beerayaan they created themselves ma rabaan inay tirtiraan waa gabdha wiilal yaryar weeyaan 2,000-3,000 waxa lagu tirtiri karaa in less than a month they wouldn't do that it gives them the justification for them to be involved in your affairs on a permanent basis waxa weeyaan anagu nala jiraa Ethiopia anaga saaxiib nala tahay Kenya anaga saaxiib nala tahay hebel anagu ceenka nala yahay haddaan nahay daarood haddaan nahay hawiyo haddaan nahay dir haddaan nahay qolba qoys sheego kulligan waa lidigu adeegan haya one script wiilal yaryar oo yaa sheekada iska wadaan oo maantana kuwana kor loo qaadi 4 maalmood waxa weeyaan Puntland baa garab la siini markay waxoogaa joogto waxaadana 4 maalmood kale Somaliland baa garab la siini 5 maalmood nin xamar jooga ayaa maarsaba tagi oo inta si warwareegi 5 kale ku kala lagu hagaajin kismay haddana kiimaan mar waxa dila joog maxay ahayd digil imirfle iyo baydhabo iyo meelaha shariifka loo yeeri aabihim baad fuudka la cabaysan awgeena waa lagu gubi dhageystaan idin sheegay يرى هذا وان ير يوقفته واسكيل على بريها اللغة داسكو إذا جايستا ما كلتش الله دارود إيه هدر إيه هوية إيه إساق إيه ننكست وحي كلتش عليا مالها كل جنس ومالي باتين دل كان اللود اللي مركان ننكست هادو شاكير كو حساب تمو waxaa ku fiican hadda adii xaaskaada haday muran inaga dhaxeeyo oo cadow dibadda oo keemaada maxaad sameyn horta aan heshiinay ilaa macaanka Sooma xamar dadka jooga oo magaca qaranka maanta wato ha u tagaan walaalahood gobolada meel kasta oo dhanba jooga maxaa maskaxda ka balaaran kuwan gobolka jooga iyaga lagu xisaabaya nimaqlaysa halkay laakiin iyaga haday noqdaan Addis Ababa looga yeero oo kii looga yeeray Jubaland iyo kii Somaliland iyo kii Puntland ee isgarab socdaan iyo kii qaran ka socday oo midba maalin inta loo sheekay la oran dhabarka inta la xaga u kac maxay noqonaysaa marka waxaanayto waxa loo baahan yahay in si fiican oo dhaba loogu xisaabtamo anaga faarax hadii aan ahay hadday noqotay in al-shabaab 4 beri inta garab la siiyay Soomaalida laga saaro meesha diyaar baan wahay 4 beri way dhaaftay sanad ka badan ay noqotay ma ahayn waxaan mareynaa hadda sanadkii 3 Sooma 2 sano ma dhamaatay isku dhawday 2 sano dhamaatay hadda wixii ka dambeeyay ciidan ka soo baxan leena Kenya ha ka soo baxan hadda wixii ka dambeeyo hadii kala hatusaan road map بوليسtan ku tababareena military aan ku tababareena waxaan baan sameeynaa waan tirtirnay iyagana tilaabada laga qaadi lahaa inta laga tagay baafbado la fariistay sanad kaamil inta uu jirta kismaa baafbado way cararahay wiilasha maal iska fiijiye tadoo bari wuxuu ku dhamaan lahaa sanad lagu dhamaan hadda waxa la tagay meeshii waa la dhaafay intana bidixna waa laga dhaafay midigna waa laga dhaafay bu'aali waxay joogan baareer sama joogan ee wixii la midka intaas oo dhan waa la daayay xogaada loo kaadin hasoo xoogsadaan inta had socdaan maxaa dheh in meesha lagu jiraa la rabaa imaqlaysan halkay imaqlaysan
marka garab ii noqo shaqada la dhamay laakiin aw ninka la xisaabtami laha shalay okay garab baad ii noqotay maanta where is the road map I want to see a road map ilaahay niyadii qalbiga kaama qaadin cudud yaadan haysanin magacii baad haystaa qaranka dadkaada hagaajiso horta hore kulli caloosha soo gasho oo nin kasta tanasulaad u samee oo nin kasta soo xabiibso kii gobolada ku jeegay wuxuu oranayaa war haddaan damco waxoogaa qarannimo inaan u dhaqdo ma loo eedoobi karaa nimankan xamar joogo oo hawiyo oo shilinka raadsanayaan wax kale aan raadsanayn hadda been maaha maba doonayaan dowladnimo waxay doonayaan inay dekada maartay waxyaabaha kismaayaha tay waxay u rabaan wax kale ma dekadii arboorkeedana loo dhiibo wax kale ma rabaan shilimaadkan bay u dan leeyihiin intaasuu ka oranaya kii xagga joogay kii kor hadda u tahay siisa lamid ah markaa nimanka xamar joogo soomaalinimada dhabta oo ka ballaaran waxaan oo dhan oo dadkan oo dhanba lagu soo kasban karo waa in iyaga ay sameeyaan sida ugu degdegsan ay ku dhaqaanaan oo loo kala turjubaanin maxay ku noqotay in labadooda intii la iskugu yeero meel in loo kala turjubaano oo midna la dhaha wariyaa edab yaalo wiil yaroo gabriel la dhaha u kala tilaabaan maqli kulligood hataa nin weyn lama soo diro wariyaadna meesha firiis wariyaadna meesha firiis waa yahay raalli buu ka yahay aw qabkii soomaaliyeed waraaw qabkii away intuu galay qabkii aw qabkii soomaaliyeed midiro aniga ilmaadeernahayna waa la hagaajiyo hadda maartay gobolkii Soomaalida ee asagana xal yiri karba ku dhax darsan waxaad garaaci kartana garaac shaqadan ku dirnana soo qabo warsoorun ma alaga la jiraan waka taaladii ay nimankii wiilashii maxay ahayd ay jabiyaan oo Said Maxamed Cabdullaah Xasan jigjigaana looga hagaajiyo soo saama war wiilasha afar wiil oo ngaajo u geysay bay ahayn wax kale oo dhib u geystay malaha markaa iyada oo maxay dhibkay geysatay maxay tahay jingada maartay ku taalay guriyaha dawladda soo iyagana saa looma goosan laakiin waa walaalka waa Soomaali waxa inay soo samraan loo baahan yahay oo xisaabtan dhaba intii la sameeyanka laakiin marka la leeyahay Said Maxamed Cabdullaah Xasan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo wiilwaal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo حاوتاك waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyo taalo looga hagaajiyo waxa lagu leeyahay Axmed Gurey Maxamed Siyaad Baraan kulli ku soo dareen list yar maleeyna mardhow markii saal lagu leeyahay waxa lagu leeyahay qaran matihida qabiil anaga iga tirsan baad waliga aheed anaa ku xukumi intaba ma ahan lagu hiri anaa iga tirsaneed weeyaan xayl salaas ba oran jiray manalq ba oran jiray this is a Bedouin tribes or Somali or part of the Ethiopian empire. Ye kamid yihiin weeyaan waxa kulliga askari according to them. Wana ku raaxaysanaysaa adiga. Sifaayeen taa u dhicin waxa loo baahan yahay in xisaab dhaba la galo. Waa leedan wada ceyrin waa wala wareegi maal dhawata marba waxaan iri hadii muddo yar aan joogno dadba kuma haran wadanka ani waxaan meel intaan ka dhoofay Soomaaliya gudaheeda iyo Soomaaliland gudaheeda ayaan jirtaa oo 600 kilomitir socday hada dadku ma arkin meeshii geel ma ku arkay in waliba geelka gaaban aan ku arkay meelna waxaan ku arkay dad ma ku arkay dad ma arkin dad gaalka ay ka tagay ilaa aad garaw ka tagta hadda tuulooyin yar markaa xogaa socoto bal inta Nairobi ka baxay waxa tagtaa ilaa 30 kilomitir 2 milyan qof baad mari Soomaaliya wadan waxa ku haray 10 milyan wadan waxaan nacayaha ka jira 150 milyan oo maaragtay oo jiraan ah والله لقي سفود بالله لقي مركب الحساب تنك هلا سمي علماء هذا الشو وشيخ السو هدا وهد لهي اسونا الشباب هاني وهد لين محيهد ولا مال كان وهد لين اتحاد iyo waxa kale u hadleen laakiin siyaasadda Soomaalida ha u sheego hadda war ka kaca fadhiga hadii la wada cabsado marka ay hal isweydiinay waxaan idin sheegi aad bad u raalihaanaysaan sheekhan waana qaana aniga isagoon hataa bilaabin xawilaad markii ugu horeysay baarlamaanka wax yar Sacuudiga ka shaqeynayo 92 inaad baan jeclay 93 waxaad mooyee yaan isbarnay Soomaaliya 92 93 baarlamaanka soo gashay ha markaan soo gali ya ka horeeyay markuu sheekhu uu bilaabay xaalad gormeed okay aniga 92 baan meelahaas ku arkay soo carabta jooga خير الله سيا وأنا نسنقانو بدلنا عن وضع كلنا وحيرة بوق يقيلي عن سمين كرنينا أنا كان قيلي أد بنقول حجري أو دور ميلود بان مارتي عن قدام جيران كاتم الحويني والتجاورني ورن كان وهذا only
social security ga Soomaaliya ay leedahay social net waayo ATM ka waxay bilaawday last 10 years sama how old is the ATM right now in the not more than 10 years about 2002 bay Europe ka bilaawday Mareykanka galbeed ka bilaawday anaga ATM buu noo ahaa from the time he started 10 sano horteed buu Soomaalida ATM u ahaa oo maxay ahayd intii mar la soo diro la oranayo meesha ka qaado telefoon ummadda Soomaalida runtii xawaalada deeyeen way baabi'een aad bay u dhumilayd ilaahay baa noo keenay waxyaabaha ilaahay uu maaratay uu nagu badbaadiyay ayay kamid tahay asagana waa nin xalaal ah aniga faarax oo kula hadlaya hadda koor waxay leeyahay al-shabaab waxay leedahay gaalka kurka ka soo gooya safiirka waa ka uu joogay intii qori madax laga qabtay bay Itoobiyaanka qordheen warqad ay leeyahay faarax waa al-shabaab uu qoray warqadii maxaa على أمريكا marka waxareeyto waa ummadda lagu baabi'inaya ama wax jira maaha meeshay jirtay waan garanaynaa meeshay jirtay uma doonanayaan kuma tirtireen meeshay jirtay ana marka la yiraahdo diyaarad baa dul maray iyo ciidan baa imaaday meesha bahalka Mareykan oo xabaday rideeno waxaan u maleeynaa intay imaadaan bay xabado u keenaan inay wada hub u keenaan baan u maleyn amri ilaahay mooyee ya ha hub iyo waxay u keenaan lacag waxay dhaan hawsha sii wada بعد عيد مريكان هم مارينز مال انت يسوقلن سميان سفيلانس كي ساتلايت كي ديارته درونز كي wax kasto dhanbo oo lagu leeyahay xabada inta lagu riday baa dib baa loo celi wala waabi oo sodan wiil baa waabi si AK47 haysata xaba kama jiro wax baa loo keenay anaga sheekada waa in hoos la sii bara marka waxaan idin sheegayaa Soomaali khatar baan ku jirnaa hadday noqoto dad la bedeli kara jiilkiisa iyo nidaamkiisa oo dhan ba Andalus ku bahalkii ku cilmi qaata ana arko ku soo wareegay Spain baan ku soo wareegay bigeeda waxa naxdinta ugu weyn leh markaan tagay masaajid Toledo ku yaalay oo hadda masaajid ka weyn baan aniga arkay oo meeshiisa ku qoran tahay maxay oo anna al-masaajid lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan oo inta Muhammad maxay ahayd Allah nabi waxa dhan bay ku qoran tahay ku qornaa laakiin sidiis loo daayay oo macaabid taabkay oo kaniisad ah there are hundreds of them like that boqolaal baa jirta ceenkaas oo kale marka waxaan idin sheegi xafudaysanina intiina ay tawjiil baad tihiin 30 sano hadda ka dambe masaafartan sano wax yar baa ka noolaan wali shaqadeeyadu intaanada kala dhan baanu tagnaa isaas yeela tahay waa si socna hadda marka aan kaga tagna wax dhaxal gal ah nin kasta umadiisa wuxuu u horaa naftiisa wuxuu u horaa xoogiisa wuxuu u horaa aqligiisa warniyaha wuxuu aniga hadii sheekh baan ahayo hadii aan wax sidaan u hadlo lima badbaadinayo waa laga soo dabadooni ma hada saad tiraahdo waxaad ka tagaysaa waa wax jira maaha taariikhda ma hadana saa ka gelaysan marka intaas aan idin sheegay billahi tawfiiq ninkana khayr Allah siiyo waxaan ku soo dhawaynaynaa oo waliba aan jecelahay inuu intii maado bangi ka furo Nairobi ya bangi baa jira hadda إنه وصوصيار ما إنه نغفر بنجي أنت يا وأكوسو دوينا أنا بنجي نغفره جارس كفره وجار كفره منديرا كفره سنة تركيا وجوجا إلاس برشيل أو هدين سياسي أو عام أو ما الله هدنا معي عد كيسو جو سنة وجوجا عباس باتشوجا وجوبه عرطميو وأنا أركض دونا وجوب نادي سبحان كانت يسجنا أنا ولي الكي أنا سيف عن اللي جسيبين باتشوجا هلا يروح رمع معيه يوسف حسن باتشوجا وخير الله سيه آدي أنا قام في عمله وحبذنا أسجوك إلا يوسف هلجن كمركو بالله بي أنا قاعد أقولي سيدت ميدي بالله يوسف أو مارتي كينيا هلجن كذي ما أنت أنا مال هالبولة هيو وما أنا أنت كوي العالم هيو مركا ولا ودي تشوجا ننكي شيخ وحاطر هذا كاري إنه ما وكسود ويننا إن شاء الله بالله توفيق